كان شرفت آدي آد نودي رجلي رنتنا مدير عن كفير سجرنا تلفزيون العالمية آدي آد عم فرح صنع مقالة مقدشو هنا وأصوبنا نقرأ قيب قالوا وعن سوق برانو هوانك شرفت بدن يكسو قيب قال يا شيء علماء الدين كلا انتبه وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام runtii aqoon-yahan ka Soomaaliyeed maanta marxaladda Soomaaliya ay ku jirto oo soo kabashada ah in dadka danta yar oo fuqarada wax la gaarsiiyo ama barnaamij ku aadan nafaqa darrada hay'ad arrintaas xil iska qaada ee dalka joogto oo aqoon-yahanadii Soomaaliyeed oo xidogaalka ahi ay arrintaas mataqaanaa u duubtaan aad iyo aadaan ugu hambalyeeynaa runtii dowladda Soomaaliya waxa loo abuuro waxaa waaye in dadka Soomaaliyeed dhibaatada ay ku jiraan ay ka saarto dhinaca walba dadku ay hay'addan isu xil saarta mid ka mid ah amba kuwa ugu muhiimsanba marka ma dadka Soomaalida ee bulshada rayidka loo yaqaano waa dadka jaanis u haysta inay hooyooyinka kaamamka barakacayaasha gudaha jooga ee aan heli karin inay wax gaarsiiyaan iyagoo markaas aqoontooda uga faa'iideynaya muqdisho waxaan isleeyahay dadka ku soo barakacay waxaan isleeyahay waa ka badan yihiin 1,500,000 waa ka badan yihiin dadka halkan ku nool dadkaasna waxay u baahan yihiin in beerahoodii lagu celiyo la tabantaabo la gaarsiiyo shiiqu midda uu sheegayo oo shaxaadka iska dhaafa shaqayso waxay ka imaanaysaa markii gacan la siiyo la wacyi geliyo inay tillaabsan karaan la gaarsiiyo ayaa arrintaas la gaari karaa maxaa yeelay dadka Soomaalida ama Islaamka ahi waxa ay ku shaqeystaan waxay ahaday waajibaad diiniya ayaa la kala lahaa aabuhu wuxuu lahaa nafaqada iyo dharka inuu gado والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن marka risqigii iyo marashadii haddii uu aabbihi bixi waayey booskiisaas in lagu gacan siiyo oo laga warhaayo meesha maanta laga yiraa waayo hooyooyinka Soomaaliyeed jiritaanka Soomaaliya iyaga u burdhiga meesha laga leeyahay waa markii raggii kaalintiisi guda waaye ayaa hooyadii marka wixii oo dhan isugu tageen marka in positionkaas aabuhu uu buuxi waaye marka ay dowladu gasho hay'adu ay gasho dadka mataqaanaa isxaanka sameeya ay arrintaas ay hoos u dhugtaan runtii aad iyo aad ay muhiim u tahay waana u hambalyeeynaa hay'adda gabaraa waxay tiri dowlad maxaad ka sheeganaysiin haddii xabad rootiya iyo koobiya aad dadkiina gaarsiin weydeen marka in xabad rootiya iyo koobiya runtii oo qof kastoo Soomaaliya helo waa waajib qaran oo nasaaran oo ulul albaabka saaran maxaa yeelay inta wax garata ayay taladu u taallaa marka waxaan dhihi lahaa